wanaagsan idinkiin baaqiyaarta hawada naga daawanaya oo meel kasta oo joogtaanba ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo telefishinka caalamiga ah oo Cable TV xarunta uu ku leeyahay Jarmalka xiriir aanu kula yeelnay wasiirka gaadiidka badda dekedaha iyo waliba la dagaalanka budhcadbadeedka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland injineer Saciid Maxamed Raago oo isagu haatan ku sugan dalkani Jarmalka oo aanu kula kulanay hoogii uu ka degan yahay magaalada Kassel ayaa ugu horeyn waxa aanu waraysigiisa ku soo qaadnay arrimo badan kuwaasi oo marba dhinac ka eegayno waxaanu soo ugu horeynta ku soo dhaweynaynaa injineer Saciid Maxamed Raago barnaamijka ku soo dhawow Cable TV wasiir هذه أنا حسبتين بقشرات اللي قلت ما أدري حافظ يدا هذه أنا أقول ما مدنا وسير مدة أيات شوفتي دل كان يشرمل قبل ما كهذا واحد فاهين جالس حالة دجودة دل كي هذا يجور بحين يجور بشوفته يقول بجودة هامبا وشو أنت غير بلدان يدك الصومالية ضبا هذه أنا ما حسبتين مصطفى محمد كان كيبل تيفي وعشرة هذه قلت ما أدري حافظ دي كده جنا كاسل هذه برنتي يدك كده كاسل يا وشرمل كل جود كنت هذه بنقول هذا علمي سويتي ناس ما أنت شو قدر كجمرك حدي عندي بقول نقطة دلك مدل باب الوضع أنت بقصو مغنى حنوي مع عفمات دلك التلياني جاي دلك شرملك هذا سمع ما نسك في عالم يو وادي قاعد كده ونجا وغلينا اخترنا كمتشيرو والعفمات والله كنت حالة دلك أنت كم الصدق أنا أحتاج بس كبدلي هذه نقطة الدولة الدحية هذه نقطة في ماملكي أنا وقت السنة بتلان مد واحد شراء أو مدحوين على دورتي ولا سعوتان وحق كلود شراء برايم مينستر كي ولا مقعاي مدحوين ارتواء شري لكن برايم مينستر بالا مقعاي دولة بالا بالسي انت حقا قصوا مغران حقا يقلفت هذا ما سلاس بهرمك وقص السعودية وحا السعودية يدنا إن حساب لتي لو دواقي ولا هيجري بعض مستي انتي وحشروع لوها maxaan ku yiraahdaa qabashadii Ismaaciil lafteeda iyadana la qabtay kan xigla mudana wasiir Saciid qodobada baynu dul istaagnaa arrimahaas oo dhan insha Allah marka baad waxaan ku hornaynaa dhinacan dowlad goboleedka Puntland ee aad wasiirka ka tahay inta aad ka soo maqnayd waxa madaxweyne Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Faroole uu ku dhawaaqay xisbi axsaabtii kalena kulli bijidkii ku soo jiraan sidee baad u aragtaa xisbiga uu ku dhawaaqay iyo ka fikir siyaasad ahaan maadaama dad waan ka soo maqan tahay haddii aan Mustafa dib ugu noqdo su'aashaada koowaad waxa weeye runtii su'aal muhiim ah haddii aan nahay anagu reer Puntland ama dadkii runtii Puntland sameeyay waqtigii la dhisay waxaa mabda ayagu ahaa in runtii la dhiso loo gudbo axsaab laga gudbo qaabka qabiilka waayo hadda qaabka wax lagu soo dhisaa وقاب بيرد أما قاب لو كان يديته حلبان حتى هديت هاي ما في وسيلة دكتور في قبيل باين تبدأ يكون معنا مركا إن لو قد به ها برنامج كدولة دو نمبر كو واي أفريت بس إنه لو قد به واي ما أنت إن لو قد بحسب لو قد مركا بتيار عادي وفكرة أنا سود وينيو وفكرة ده مركز تنا كانت وقت قال إسكو قبضه أما شرعيات اللي إسكو قبضه هدي ويحي حسابي تكتو يحسبي ويحي سوى عاديين حسبي بال